بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد لمان مرت شرف تقييمها بدن قف والبدر جدو كجوجو أرديدنا شرفت بدن ما أنت قلين جبينيسو لمان وحن كسلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta halkaani waxaan isugu imaanay inaan farxad la qaybsano arday muddo dadaal soo waday juudi waxbarasho markaa dheer ku soo jirtay waxbarashadii ay maanta dhameeyeen inaan farxad la qaybsano qalin jabintoonana aan ku guddoonsiino inaan la wadaagno markaa farxadda kulankan arinkaasi ayuu u caqidan yahay waxaan halkaan ugu hambalyeeynaa dhammaan ardayda sharafta badan ee dadaalka iyo juhdiga soo baxshay waxaan idin leeyahay soo jeed badan iyo dhafar badan aad soo dhafarteen habeeno badan maanta waxaad goosanaysaan miraha dadaalkiina waxaad doorateen dulqaad waxaad doorateen adkaysi waxaan ka warqabnaa marxaladii waxbarashada aad ku bilowdeen safarkaasi inay arday badan idinkula jirtay laakiin maanta oo waxbarashadii aad ka qalin jabinaysaan tiradiina waan intaan aragna markaa taana waxay ku tusinaysaa qofka dulqaad iyo adkaysimo haddii laga helo guusha waa gaari doonaa mahmaaha ayaa waxay leedahay bilowgu qof kasta waa awoodaa laakiin dhammaadka iyo nihaayadu waxaa awooda ciddii casiimi iyo go-aan leh maanta waxaad ka gudubteen marxalad ka mid ah maraaxishii waxbarashadii dheereed aad ka soo marteen waxaana u gudbaysaan marxalad kale ee waxbarashadu ma dhammaato maalinba heer ayay taagan tahay cilmiga markay culimmada tilmaamayaan waxay dhahaan alcilmu min almahdi ila allaxdi cilmiga wuxuu ka bilowdaa qofka markii la dhalo wuxuuna ku egyahay ilaa iilka laga gelinayo maanta waxaad dhammayseen marxalad ka mid a maraaxishii waxbarashada aad soo wadeen waxaad dhammayseen dugsi sare oo sharci ah waxaad u gudbaysaan maraaxil kale oo waxbarasho oo saraysa oo jaamacad ah saa darteeda maadaama waxbarashada aysan dhammaad lahayn ardaydayda waan u hambalyeynaynaa anuu ku hadlaya afka maamulka waxaana la wadaagayaa guushaani ay gaareen si ay hore ugu sii wadaan guushooda waxaa jirta wax la dhaho mafaatiixu najaax qofka markuu rabo inuu guulaysto aqoon iyo cilmi waxbarasho inuu ku guulaysto waxaa laga maarmaan ah qodobo inuu la yimaado qodobadaasi waxa uga horeeya qofkii inuu ka cabsado allah subxaanahu wa tacaala saa darteeda waxaan idin dardaarmaynaa allah subxaanahu wa tacaala inaad ka cabsataan ilaahay subxaanahu wa tacaala asagoo ka hadlaya guusha in lagu gaarayo alla ka cabsiga wuxuu dhahay wattaqu llah wa yucallimukum ullah allah ka cabsada ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaa cilmiga idin barayo sidoo kale waxyaabaha guusha lagu gaara waxaa ka mid ah sabarka iyo dulqaadka qof kasta uu sabro wuxuu guranayaa dadaalka natiijada ka dhalanaysa sabarkii adinkana maanta waxaad haysaan natiijadii ka dhalatay sabarkiina inaad halkaa ka sii wadaan ayaa idinkaga baahan yahay sidoo kale waxyaabahu qofka guusha waxbarashada ugu gaaro waxaa ka mid ah in kula dardaarmayo dadaal inaad dadaashaan oo maraaxishii waxbarashada in ku soo socoto aad ku sii dadaashaan sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha u dardaarmayo ardayda maanta qalin jabinayso in waxa ay joogteeyaan waxa ay baranayaan ardayda zamankan jirto waxyaabaha lagu canaanto si hoose loogu eedeeyo waxaa ka mid ah mudaawameyn la'aanta iyo joogtayn la'aanta middaa oo markaasi qiimo waxbarashada agteeda aanan ka yeelanayn waxyaabaha lagu mahmaaha waxaa ka mid ah laba haddaysan xiriirsan faa'iido ma lahan labadaasina waxaa lagu tilmaamaa daawada iyo waxbarashadu hadduu qofka daawada uu xiriirin waayo caafimaad ku heli maayo sidoo kale qofka hadduu waxbarashada xiriirin waayo asagana aqoon uu markaasi intifaacsado heli maayo intaa markaa halkaa uga gudbo waxaan wax yar ka jeclahay inaan ka dhaho macadka ibnu qayim waa macad waxbarasho ee asaasitaankiisa ay keentay baahi xagga bulshada ka imaaday oo ah in la helo markaasi machad kulansanayo ardaydii inuu baro culuumtii shareecada isla markaana laga heli karo qur-aankii kariimka ah baahidaa waalidiinta xaggaa ka imaaday iyo codsiyo tiro badan sababkeeda ayaa macadkan sababka lagu aasaasay kow ka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan oo ka midna waa nagu guuleeyey arrimaha soo socdana insha allah waan ku guulaysan doonaa waxyaabahu macadka sidaa darteed macaahidda kale uga duwan yahay uu la gaarka yahay waxa kamid ah
in macadkii laga helayo waxbarasho shareeco ah isla markaana laga helayo waxbarasho qur'aan ah sidoo kalena laga helayo waxbarasho dad waaweyn ah iyo waxbarasho markaa dadka yaryar ah qof walbaba iyo heerka uu joogo iyo waxbarashadu uu joogo inuu markaa ka helayo waxyaabuhu macadka ibnu qayyim la gaarka yahay waxaa ka mid ah ardayda markaasi aanan awoodin waxbarashada inay iska bixiyaan inuu markaasi u siiyo minxa diraasiya si loogu kaalmeeyo hamiga ay leeyihiin ee waxbarasho si ay ugu guulaystaan maanta halkan waxaan u joognaa ardaydan inaan farxadda la qaybsano sidaa darteeda waxaan u hambalyeynayaa ardayda markaa waxa weeye qalin jabinaysa waxaan leenahay hambalyo dadaalka iyo juhdiga halkaa ka sii haaya ilaa aad markaasi aad ka gaaraysiin heer markaa aad u sareeya waalidiintiina ay ku qancaan macallimiintiina ay ku qancaan allah subxaanahu wa tacaala aad ku raaligelisiin mar kale waxaan u mahad celinayaa marti sharafka qiimaha badan qof walba heerkii iyo meesha uu ku joogo waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin sida quruxda badan aad noo soo ajiibteen waxaan rajaynaynaa sidaa maanta meeshaan ugu kulannay xafladdaani xaflado kale oo ka wanaagsan oo ka tiro badanna insha allahu inaan ku kulmayno wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin